haddii madaxweynuhu heshiiskaas fulin waayo waxaa caddaan ah in aanu haba yaraatee diyaar u ahayn inay dalka ka dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah waxaana lagama maarmaan ah in aanu dalbanoono in beesha caalamku na soo kala dhex gasho waxay labada xisbi mucaarad go'aansadeen in aanay aqbali doonin wax aan ahayn waqtigii saddexda xisbi ee xukuumaddu isla qaateen ee ahaa December 2016 haddii xukuumaddu taa fulin weydo waxaa xisbiyada mucaaradka ka go'an in lagu noqdo go'aankii komishanka ee ahaa in doorashada la qabto 1 Juun 2016 shacabka wajiya in aanu qodobka in aanu go'aanka guurtidu waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga Soomaaliland sababta oo ah faqada ah ma jiraan duruufaha ku xusan qodobka 24aad farqadiisa saddexaad iyo qodobka 13aad farqadiisa shanaad oo qeexaya duruufaha keeni kara muddo kordhinta b in aanay guurtidu xaq dastuuriya u lahayn inay laalaan go'aanka guddiga doorashooyinka ku cayimeen maalinta doorashada isla markaana aanay xaq dastuuriya u lahayn guurtidu inay iyagu cayimaan maalinta doorashada sida ku cad xeerka 20aad ee soo baxay 2001 qodobka 14aad farqada 1aad qodobka 11aad farqada 6aad iyo qodobka 8aad go'aanka shanaad annagoo ka duulayna dhammaadka madaxileedka madaxweynaha iyo golaha wakiilada iyo go'aankii maxkamadda sare ay ku amartay in si degdeg ah loo soo afjaro khilaafka doorashada waxaanu caddaynaynaa in aanu diyaar u nahay fulinta go'aanka maxkamadda amarka maxkamadda shirku wuxuu go'aamiyey qodobka u dambeeya shirku wuxuu go'aamiyey in nabadda xasiloonida iyo jiritaanka madax banaanida Soomaaliland uu yahay muqaddas waxaa ku saxeexan labada gudoomiye xisbi mudane Faysal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga UCID iyo mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani wabillahi tawfiiq